qaar ka mid ah darawaliinta iyo gaadiidleyda magaalada Ceergaabo ayaa iyagu si iska wax u qabsaa ku dayactiray wadada halbowlaha isku xidhka magaalooyinka Ceergaabo iyo Boosaaso iyo sidoo kale bariga gobolka Sanaag. Wadadan ay iska wax u qabsada uga shaqeynayaan darawalada iyo gaadiidleyda ayaa wadada dhanka bari ka soo gasha magaalada Ceergaabo iyadoo magaceedana la yiraahdo Xagal. Qiyaas ahaan magaalada Ceergaabo u jirta 1 kiiloomitir. haddaba maraanu booqanay wadadan Xagal oo ay dayactirayaan dadkan iska wax u qabsada ayaanu la kulanay iyadoo shaqada wadadaasi socoto. waxaana darawaliintan inoo sheegeen inay si iska wax u qabsaa wadadan u dayactirayaan isla markaana aanay wax gacan ama caawimo ka helin mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo sidoo kale hay'adaha deeq-bixiyayaasha. darawaliintan gaadiidleyda iska wax u qabsada u shaqeynaya ayaa iyagu magac ahaan isugu yeedha ururka Danwadaag ee magaalada Ceergaabo. waxaana iyagu arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya hadaladoodii ka mid ahaa. annagu urur baan leenahay ururkaygu waxa weeye Danwadaag baa la yiraahdaa. ninkii nagu soo biiraya gacmo furan ku soo dhaweynaya qayb waxaan uga siisay iska wax u qabsan baan ku dhisnaan laakiin se wax qof cayiman oo leeyahay qofka keen ama wax qof cayiman oo aanu ka shaqeynaa ma jirto ama leenahay qofkaas ku meel baan ku tisanaa. halkan oo wadada Xagleed in badan oo hadda ku horna waa ka shaqeynay cid naga caawisan weli maamul iyo hay'ad iyo midnaba shaqaalaha waxay waxna iska wax u qabso cid nagu taageertay iyo hay'ad wax nagu siisay iyo maamul noo yimi iyo dawladda soo weli weli cid ma arag. agtaan wadadii Xagleed baanu taaganahay dadka dhisayana waa Danwadaag waxa weeye markaa waxa weeye waa gaadiidleydii gobolka Sanaag wax caawiyay haday hay'ad tahay iyo haday dawlad tahay oo noo yimina ma hayno annagana isxilqaanay. dareerkii qayb shaqada ka mid ah buu qabtay waxaan ku soo qaaday 2 jawaan oo ciid hadda insha Allah ka bacdina waan ku soo noqon doonaa wadada waan ka qayb galaya aniga iyo dabeerkaygu sidaas ayaanu ka qayb galaynaa. waxaana igu guubaabiyay gruubka baabuurleyda iyo dadka shacabka ee iska xil saaray wadada iska wax u qabso ururka Danwadaag ee gaadiidleyda oo howl weyn iska saaray inay wax ka qabtaan wadadan aad ka dayacneed ee isku xidha bari ilaa koonfurta gobolka Sanaag oo aad dadku ugu tabaaleysnaayeen. waad arkaysaan maanta hawsha weyn ay ka hayaan halka kan haddii aanu dhalinyaranahay waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda iyo cid kasta oo ganacsatada waxgaradka in ay ka qayb qaataan. maanta waxaan ku sugannahay wadada halbowlaha magaalada u ah run ahaantii marka la eego ganacsiga magaalada 80% oo halkan maro waxa weeye wadada Xagaleed run ahaantii wax badan waan maray maantana waan joogaa booqashaan ugu yimi markii la sheegay in shaqo ka socoto waxaas oo dhan gaarsiiyeen waxa weeye ururka Danwadaag oo iska wax u qabso intay bilaabeen ku sameeyay wadada inta leeg. Maxamuud Geedi, telefishinka caalamiga ee Soomaaliya News TV magaalada Ceergaabo.